assalaamu calaykum sheekh. waxaa jira daba loo cuno xubinta taranka ee ragga taas oo xoog ku siinayso iyo xagga dhirirka ama ballac. xagga xubinta taranka ee ragga diinta islaamku maxay ka qabtaa haddaan cuno dawadaas ama aan isticmaalo? alxamdulilah. dabcan xaaje iyo baahi weeye wax hadda bilowdayna maaha. arrimahaas iyo tasaa'ulka iyo ka hadalkeedu wax hadda bilowday maaha. oo dee waxaan waa abiica bashariya, khilqa bashariya, abuur aadamo wey. inteeda taariikhay soo socotay aadamuhuna baahida ragga iyo dumarka iyo xubnaha taranku way un soo jirtay. walidaalika ay fuqahadeenna culimmadeenna kuwii hore iyo kuwa hadda xilligan joogaba aada uga hadlaan arrimaha la xiriira. kutubbaa laga qoray, ama masaladan ha noqoto ama masaa'ilka la xiriira ha noqoto. qaar baa risaale qoraallo mastera lagu qaatay, qaar baa PhD iyo doctora lagu qaatay oo kuliyaadka fiqiga ee shariicada ah. waxyaabaha marka laakiin dadkeenu marka laga hadlayo waxaa laga yaabaa in su-aasha weydiinteedu dad qaar badan dhibsadaan, in ka badan intaana ay sii dhibto jawaabta laga bixinaya su-aalahan oo kaleeto. waxaan rabaa marka hore inaan dadka maskaxdooda ku dejiyo waxani waa baahisha biaadami ah wey. baahidii aadamagana waxay keentaa aadamuhu culumtooda iyo tajaaribtooda baahidaas in la xaliyo inay ka shaqeeyaan. haddaba qofku inuu u baahdo qaabkan aadamuhu mushkiladan u xaliyeen ee loo soo bandhigay xalkeedu shariicadu ma ogoshahay inuu yidhahdo arrin wanaagsan wey. waxay fuqahadeennu kutub ka qoreen mas'aladan lafteeda. waxay ka hadleen waxay ka hadlaan xubnaha la tallaalo. markaasaa waxaa ka mid a waxaa laga hadlo xubnaha tallaalka, xubnaha taranka, kuwa ragga iyo kuwa dumarkaba. hadday qof xubintiisii wax ku dhacaan oo qof kale oo dhintay iyo wax lamida, rag iyo dumarba xubintiisii taranka inta la gooyo qof kale lagu beero ma bannaanta. waxyaabaha markaad dooda culimmada dhegaysato qolyo ogol iyo qolyahan ogoleynba faniga ah waxaa ka mid a in la leeyahay ninka xubin taran oo nin kale lagu beeray ama lagu tallaalay, ama qofka dumarka ah xubin taranoo iyadu aynan lahayn ama min aynan lahayn keedii inta la jaray lagu beeray, xiriirka ay samaynayaan ee gogoleed ma koodiibay samaynayaan mise xubno dad kale ay xiriir gogoleed ku sameeyeen? ninkani xaaskiisa markuu u tago isagoo xubin kale lagu tallaalay ma isagaa u tegey mise cid kale u wakiil ka yahay? manaa dooda iyo su-aalaha la ishordhigay ka mid tahay. haddii hooyada min la soo gooye lagu beero oy uur qaado, ilma ay dhashay bay wadaa mise ilmo iyo min ku jira bay caloosheeda u karaysan tahay? manaa dood mashhuuro culimmada iyo majaamicda cilmiga ee fiqiga iyo buxuusta iyo jaamicaadka iyo qoraallo badan laga sameeyey kuwii horena ay ka hadleen. marka ayaan la qariibsanin ama waxaan maxaa loo keenay iyo dadku xishoon maayaan. ilaahay baa in allaha laa yastaxii min alxaqi yiri. saxaabiyaadka qaarkood markay su-aal weydiinayeen waxay yidhi rasuulka ilaahay ilaahay xaqa kama sariigto. haweenta hadday biyo shahwa ka yimaadaan qabays ma laga rabaa? mid ag joogtay waxay tiri bala kugu dhacday, maxaad haweenka waad ceebaysay. nabigu tii saa tiri wuxuu ku yidhi daa taribat yadaak bima yakuunu shabah. ilmuhu see hooyadii ugu ekaada haddayna biyo shahwa lahayn. marka su-aalaha saas oo kaleo la isdhibsada way ahaan jirtay. su-aalahan kaleo la qariibsani waxaa ka mid ahaa nabigu abubakar iyo cumar iyo golo fadhiya bay gabar u timid. nin bay kala tageen, saddexdii baa u kala dhammaatay, nin kaley guursatay, ninkii kalaa qancin waayey gogoshi. waxaata rasuulka ilaahayow nin rifaaca la yidhahda ay guursaday, saddexdiina waa iga dhammaatay. kadib cabdiraxmaan ibni zabiir nin la yidhahda aan guursaday. maa macahu ilaa milu hudbati thawi bay tiri. meesha waxa uu ku hayaay waa wax jircisanoo maradoo kaleeta ah. waxay weydiinaysaa waa nabiga, waxa weydiinaya waa gabar saxaabiyada. goobtay ku weydiinaysa meel gaara maaha. hadee leynu hadda fagaaran fadhinahay, abubakar baa fadhiya, cumar baa fadhiya. cumar waa dhibsaday laakiin nabigu ma dhibsan su-aasha. wuxuu yidhi marka hadalkii wuxuu ka fahmay ninkan ima anfacayee mar haddii saddexda kadib aa nin guursaday kayga hore isaga noqdaan rabaa. wuxuu yidhi maxaa rabtaa inaad rifaaco ku noqoto soo maaha? wuxuu yidhi laa xataa taduuqii cusaylatahu wayduqa cusaylatak. ilaa si fiican isu dhadhansataan kii hore kuma noqon kartid. waxay rabtayna waa sheegay,
waxa ka horeeya in la helo ay tahayna waa u sheegay marka su-aalahan hadday baahi tahay qofku uu ku mahadsan yahay saa'ilka inuu weydiiyo waxaan shariicada muwaafaqsan yahay bini aadamkii waxaana suuqa yaalla su-aasha haddaan u soo noqdo jus-iyadana maan ka jawaab jus-iyaadka kale waxaan dhihi lahaa risaalada maajisteerka ee laga qoray dadka dalabatulcilmiga ha ku noqdaan la yidhaahdo alitisaalu ljinsi bilwasaa'il alxadiida xiriirka gogollada ee dhexmara ragga iyo dumarka iyadoo la adeegsanayo waxyaabaha cusub ee casriga ah ama balastic ha noqoto xubin balastic laga dhigay ama tu qof laga soo gooyo lagu tallaalay ha noqoto ama iyadii oo lafteedii balastic hoosta lagaga sameeyey ama mishiin yar lagu rakibay ha noqoto ama wuxuu tilmaamaya qayb ka mid ah culimmaduna rasaa'il ka qoreen waxyaabahan fiagarada la yidhahdo ha noqoto rasaa'il baa laga qoray marka waxaan rabaa inaan iraahda dawadan la isticmaalayo dhibaato ma laha hal shardi baa ku xiran keliya hal shardi keliya ku xiran inaynan keenaynin isaga ama cidda uu xiriirka gogosha la sameynaya dumarka iyo reerkiisa inaynan dhib ka badan u keenaynin oona khatar caafimaad lahayn hadduu wuxuu khatar caafimaad leeyahay ama isaga gaadhsiinayo ama uu gaadhsiinayo cidda kale lama ogola laakiin khatar caafimaad hadduusan lahayn sida kiniinada la isticmaalo oo kaleeto dhib ma laha laakiin waxaan kula talin lahaa qofkaas intaa ka badan inuu baaro dawooyinkan intaan ka aqriyey anugu dee mar walba dawaa soo baxdo laga yaabaa side effectiga iyo dhibkay leedahay in la yareeyo laakiin aan horeen aqriyay anugu side effect iyo dhib badan bay leeyihiin laakiin waxaa ka side effect yar waxaan qaabkan masaajka masaajka haddii uu rabo dheerayn ama ballaarin system massage oo waxaa jira saliid iyo saliid zaytuun iyo wax la isticmaalo inuu kuwaas isaguna uu isticmaalayo xataa qof kale uusan u baahnayn oo ama raga ama dumar inuu cawradiisa uusan u baahnayn systemkaasaa jira waxyaaba badan oo xogteeda oo laga iyo xogteeda ahna netka uu ka helayaay intaa ka badan usii dhaafi maayo dee meelaha inuu ka raaraadiya ila qon billahi tawfiiq